بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قدوميها جبهة وداني وحرينة أوغادينيا كربكا نبدا يهر مركا وحان ربائنا هلكا برايس ريليس يكوسو قدبيو كارهان أن أسو قدبيو شعبك كنا وديغانكا أوغادينيا waayahan dambe la kulmayo isbedelada cusub ee isdabajooga ah ee ka dhacay dalka Itoobiya guud ahaan iyo midka gaarka ee dalka deegaankoodii tan labaad waxaan rabaa inaan halkan salaan ballaaran ugu soo gudbiyo oo kan gacayl ku dhahan dhammaan ergooyinka ka soo qayb geli doona shirka ka dhici doona magaalada Dirdaba waayahan cusub waqtigan dhow ee la filayo inuu ka dhaco magaalada Dirdaba waxaan shirka u rajeynayaa guul iyo natiijo wax ku ool iyo inuu iba furo u noqdo waaga cusub ee u bariyay qowmiyaadka Itoobiya gaar ahaan Soomaalida deegaanka Ogaadeniya siyaasadda cusub iyo isbedelka ka yimid ayaa ah in la jaan qaado gacana laga geysto sidii loo sixi lahaa qaladaadkii ka dhacay gobolka si uu deegaanka Soomaalida Ogaadeniya u noqon lahaa deegaan amnigiisu sugan yahay dalka nabad iyo barwaaqo ku nool yahay iyo inuu horumarkiisu gaaro heerka maanta beesha caalamku u taagan yahay dulmi waxa ugu filan boqolkii sano ee aynu ku jiray cadaadis xorriyad la'aan horumar la'aan xuquuq la'aan taasoo maanta laga baxo loona istaago sidii loo ciribtiri lahaa dulmigii soo jireenka ahaa ee shacabka ku habsaday kaasoo horseedna u ahaa gaajo fiqri aqoon la'aan iyo wax lamida shirka oo uu ku baaqay ugaas Mustafa sida xaash ahna loo soo abaabulayo oo lagaga hadli doono masiirka shacabka Soomaalida Ogaadeniya waanu ka soo qayb galaynaa waxaana inooga soo qayb gali doona wafdi ballaaran oo ka socda golaha sare ee jabhadda wadani xorriyadda Ogaadeniya ururkan oo NLF ee garabka nabadda waa kii keenay siyaasaddii deganeyd ee nabadgelyada oo uu ku khasbaday kalsoonida shacabka waxaan marka ka koowaad iyo marka labaadba ahmiyadda weyn siinaynaa ilaalinta midnimada shacabka Soomaalida deegaanka Ogaadeniya shirka waa inuusan noqonin kii 1991 oo aynu ka faa'iideysan weynay isbedelkii cusbaa ee waagaa jiray ergooyinka shirka isugu imaanayo waa inay leeyihiin aragti fog taasoo ah in la helo Itoobiya oo loo dhan yahay oo la wada leeyahay oo qowmiyad walba ay si xaq ah ugu noolaan karto deegaankeeda waa inaysan dib dambe u dhicin sidii boqolkii sano ee ugu dambeeyay in la dulmiyo qowmiyadaha qaar ka mid ah xoogna lagu maquuniyo waxa aysan raali ka ahaynna lagu qasbo oo ay arrintu noqoto xabsi iyo gulnimo qaado haddii taa la waayo waxaa bedel u noqon kara ama alternative u noqon kara in qowmiyad walba ay iskeed u istaagto oo ay ismaamusho taana waa mid ay beesha caalamka aysan dulle ku tahay inay nagu aqoonsato in muddo ah waan ka gaabsanaynay inaan siyaasadda Itoobiya iyo midka deegaanka aan dhex boodno ama dhaliilo u soo jeedino waa midoo wixii wanaag ahaa ee aan tala ahaan u soo jeedinayba waxay noqdeen kuwa aan meeshoodaba laga qaadin waxayna ahayd xilli aan naloo garaabi lahayn haddaan dhibaatooyinka ummadda haysta aan carab dhabi lahayn balse hadda waxaad moodaa inuu shacabka ku baraarugay isbedelka cusub ee ka hana qaaday Itoobiya inteeda kale
inta waxaan doonayaa inaan kusoo koobo shirka iyo bogaadintiisa. haddana waxaan rabaa inaan premier minister ama prime minister Abiy Ahmed uga mahad celiyo tallaabooyinka daruuriga ah inuu xilliyadii munaasibka ahaa uu ku qaadayo. waxaa shaki ku jira inuu mas-uulkani yahay midkii loo baahnaa oo si daacadnimo ah xal ugu heli karo qowmiyad walba oo dhib sheeganaysa. His Excellence Dr. Abiy Ahmed, waxaan soo dhaweynaynaa isbeddelka cusub ee aad hormuudka ka tahay, kaas oo saameyn weyn ku yeeshay shucuubta ku nool geeska Afrika oo dhan. waxaan shaki ku jirin inay jiraan dadyow ay dhibayso wax walba oo wanaaga. waxaa loo baahan yahay in la foojignaado, lala ilaaliyo iyo dulqaad dheeriya loo yeesho. haddaan tusaale usoo qaato colaadda kala soo dhex gashay qowmiyaadka Oromada iyo Soomaalida, waa colaad ay dad gacantoodii ku sameeyeen dana u gaar ana ka lahaa inay dhibaatooyinkaasi dhacaan. His Excellence Dr. Abiy Ahmed, kuwa qowmiyadaha isku dirkoodii ka shaqaynaya ayaa dantoodii gaar ahaan ugu jirta inuu waddanka galo xilli xasilooni dari iyo qalqal siyaasadeed. dadka oo loo aaneynayo xukuumadii dalka soo maamuli jiray, kuwaas oo ay dhibayso inay arkaan isbeddel dhab ah iyo wanaag Ethiopia ay ku tallaabsato. waxaan ku hanweynahay inuu maamulka Dr. Abiy Ahmed noqon doono xilli dhow mid horumar gaara, isla markaasna inuu isbeddelka noqdo mid lagu diirsado oo rajo cusub gelisa dadweynaha ama bulshooyinka Ethiopia. ONLF wuxuu dadaal weyn usoo galay xoreynta iyo xuquuq helista shacabka deegaanka Soomaalida Ogaadeniya. halgan walba waxaa ku dhinta haldoorka dadka sida siyaasiyiinta, culamaa diinka, odayaasha, dhalinyarada iyo hooyooyinka. inta uu halganka hubaysan socday ayaa hooyooyin badan ku gablameen, caruur badan ku agoontoobeen. waxaa ku nafwaayay halyeeyo magac iyo mansabba ku leh qadiyada, iyagoo adduun, aqoon, dhaqaale iyo nolol fiican ku haysta adduunyada ayay maalin cad ay ka dhaqaaqeen caruurtoodii iyo xaasaskoodii si ay qadiyada Ogaadeniya u meel mariyaan himilooyinka dadka iyo dalkana ay wax weyn ooga qabtaan. danta guudna ay ka hormariyaan dantooda gaarka ah. allahu naxariistee gudoomiye Dr. Maxamed Salaad Dolaal wuxuu shahiiday asagoo qorigiisa garabka u suran yahay. waxaana ka go-nayd siduu dalka xaalad adag ku jiray oga saari lahaa. muddadii aan halganka hubaysan ku jiray, waxay jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya siyaasadeeda aasaasiga ah uu ahaa in shacabka Ogaadeniya ay xuquuqdoodii iyo madax banaanidoodii ay helaan. beesha caalamku waxay isku dayeen noona soo jeediyeen inaan nabad ku tijaabino, iyagaana garwadeen ka ahaa, gaar ahaan midowda Yurub iyo Maraykanka. si kastaba ha ahaatee, waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo halgankaasi kasoo qayb qaadatay, isla markaana diyaar u ah inay isbeddelka cusub ka qayb qaadato si ummadda jiritaankeeda iyo xuquuqdeeda loo heli lahaa. mar walbo halgan lagu jiro ama shaqo qaran la qabanayo, wuxuu mujtamaca isku qabtaa fikir kala duwanaansho. waxaase muhiim ah in goolka
la hiigsanayo uu yahay mid isku meel loo wado. shirka ay ku baaqeen odayaasha haddaan wax yar ka iraada iyagana guud ahaan oday dhaqameedyada soomaalida sida ay ku caanka yihiin waxayna ahaayeen ama yihiin maantaba hogaamiyayaasha bulshada oo dhinac walba ah. waxaan ixtiraam iyo wanaagba u hayaa odayaasha deegaanka soomaalida Ogaadenya kuwaasoo mar walba taageersanaa halganka loogu jiray xoreynta dhulka iyo dadkaba. mar walba waxay kaalin mug leh ka qaadan jireen midnimada, isku keenista iyo nabadeynta bulshooyinka ku wada nool deegaankaas. sidaa darteed shirka ay ku baaqeen odayaasha deegaanka ee ahaa in la isugu yimaado 5 bisha 8 2018 magaalada Jigjiga waxay noogu muuqataa inay howl aan dhaqso u hirgeli karin tahay marka laga fiiriyo abaabulka guud sida ergooyinka gudaha iyo dibadda, qodobaynta shirka oo la rabo inay noqdaan kuwa la jaanqaada isbeddelka cusub ee Ethiopia, waqtigii oo ciriiri ah, muddadii inuu shirku ku qabsoomi lahaana uu dhow yahay. sidaa darteed waxaan filayaa inay shirkan dib u dhigi doonaan si waqti munaasab ah loogu helo. waan salaamay, waadna mahadsantihiin dhageysiga aad iga dhageysateen.